cabdisalaam cali karood waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo muddo ka badan 20 sano kasoo shaqaynayay howlaha samafalka waxaana si weyn u soo jiidatay caalamka barnaamijyo dhaqan-dhaqaale bulsho oo hay-adda madaxa uu ka yahay kaalo Netherland ka fulisay dhuludug Puntland waxaanu marar badan ku mutaystay abaalmarino caalami ah iyadoo kaalo Netherland inta badan diiradda ay saarto gacan siinta wacyigelinta hal abuur loo sameeyo dhalinyarada Puntland iyagoo lafdhabarta u ah mustaqbalka dalka waxaana xasuus midan in markii ugu horeysay taariikhda Puntland kaalo Netherland ay ku guuleysatay dhismaha xanuun dhalinyaro aan nooceedoo kale hore uga jirin deegaanada Puntland oo loogu talagalay in lagu kulmiyo dhalinyarada loogana faa'iideysto aqoon isweydaarsiga tababarada iyo horumarinta waana kan isagoo ka waramaya hadafka loo asaasay dhismahaana waxaan u dhisnay markii aanu aragnay dhalinyarada oo ah 75% dadka reer Puntland haddana rool badan aan lahayn oo mararka qaarkood markii ay howlal ay ku shiraan loo baahdo lacag badan oo ay awoodin lagu la weydiiyo iyo mararka qaarkood waxa arkaysaa qof dhalinyaro oo jaamacad ka baxay oo markuu jaamacadda ka baxay ay ku noqoto inuu mugdi galo marka halka waxaan ugu talagalay tababarka dhalinyarada kor waa library waxa lagu akhrisan doono waxa ku jira xafiisyo waxa ku jiri doona meelasha lagu cabo waxaan isku dayeynaa inaan sanooyinka soo socota aanu dhalinyarada kamida ama dhalinyarada reer Puntland inaan aba waxbarasho u dirno ama ka qayb gelino shirarka dhalinyarada ee adduunka socda ay balo arkaan dhalinyarada adduunyada kala jooga oo iyaga intaa kuma eka awlaa baaxadda leh kaalo ka qabatay Puntland waxay fulisay qodista baraago iyo ceelbiyood looga hortagayo biyo la'aanta iyo waliba cimilada isbedelaysa waxaana xusid mudan in kaalo Netherland ka qayb qaadatay tayeynta caanaha ay hodanka ku yihiin xoolaha ay dhaqdaan bulshooyinka Soomaaliyeed kama marna barnaamijyada ay fuliso kaalo Netherland gacalsiinta beeralayda hubinta tayeynta carrada ku habboon beerashada talasiinta maalgelinta shiniyeynta iyo qalabaynta waxaana ugu dambeyn kaalo Netherland fulisay barnaamijyo sare loogu qaadayo awoodda kalluumaysatada Puntland iyadoo ka gacan siisay dhinacyada qalabaynta dhismaha qabowjiyayaasha lagu ilaalinayo tayada kalluunka seminaaro iyo tababaro joogto ah oo wax ka bedelay nolosha kalluumaysatada Puntland